ma xasuusataa habeenkii Real Madrid uu hor istaagay hal xidig oo kaliya isagoo shaqada ka eriyay macallinkii kooxda Real Madrid ee xilligaas Jose Mourinho waxaynu dib ugu noqonaynaa 24 Abriil 2013 kulan ay iswajahayeen kooxaha Borussia Dortmund ee Real Madrid oo lagu ciyaarayay garoonka Borussia Dortmund waxa uu ahaa semifinalka tartanka Champions League Real Madrid sanado badan ayaa ay baahi u qabtay inay timaado finaalka tartanka iyo inay ku guuleysato koobkaaniba waxayna ku soo gashay saxdii ugu awoodda badneed ee xilligaas si walba ay noqoto Borussia Dortmund waxa joogay mid ka mid ah ciyaartoy daayara ah oo aan magacooda si aad ah loo garanay laakiin 90 daqiiqo kadib saameyn ku yeelan doono kubadda cagta ee dunida isagoo sabab u noqon doono in kooxda laga eriyo macallinkii xilligaas ee Special One waxayna ciyaarta bilaabatay iyadoo markaasi 8 daqiiqo gudaheedu gool ku ansixiyay Lewandowski oo noqon doona xidiga qoraya magaca iyo sumcaddii ugu sareysay ee kulankaasi Ronaldo ayaa 43 daqiiqo goolkiisa noqoshada ansixiyay taageerayaasha boqortooyada waxay qaateen in ciyaartu ay ku dhamaan kareyso inay iyagu guuleysanayaan laakiin 50 daqiiqo 55 daqiiqo iyo 66 daqiiqo waxay noqdeen 4 gool oo shabaqada soo taabsiiyay Lewandowski oo ciyaarta ka dhigtay 4 gool iyo hal waxayna sidaas ku dhamaatay ciyaarta waxa kooxda laga geeriyay macallinkii kooxda Real Madrid oo Jose Mourinho Special One iyadoo Real Madrid ay noqotay magac diiwaan ahaan loo qoro in 4 gool iyo hal semifinalka tartanka ay ku macsalaamayso isagoo hal ciyaariyood oo kaliya uu ka ansixiyay bal haddii aan ku weydiiyay xilligaas halkee ayaad ka daawanaysay kulankan